السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arrin ku saabsan siyaasadda hadda ka socota Jamhuuriyadda Soomaaliland oo wakiilka uu ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr dhaliilood oo waqtiyadan ugu dambeeyay ama sanadahan ugu dambeeyay soo badanayay taasi oo ay ka tahay isnacsiinta ummadda Soomaaliyeed. markii hore waxay ahayd inay kala saarnaato ama ay kala saarnaan jirtay siyaasadda iyo arrimaha bulshada. hadda se waxaad moodaa sanadaha dambe inay isku walaaqmeen siyaasaddii iyo arrimaha bulshada oo ay kala garan laayihiin qoladii mas'uuliyiinta siyaasadda ka shaqaysan jiray hawlihii bulshada iyo arrimaha siyaasadda. midda labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo kalsooni la'aanta haysan Muuse Biixi kalsooni la'aanta waxa lagu garanayaa marka koowaad waxa weeyaan isnacsiinta ummadda Soomaaliyeed oo isnacsiinayo waxana sabab u ah Jamhuuriyadda Soomaaliland imika waxaan ognahay inay ka jirto jabhado badan oo ka dilaacay sanadihii ugu dambeeyay mas'uulka ka ahaa madaxweyne Muuse Biixi dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan ogaan jabhadii Caare waxaan ognahay jabhadan imika ka aalowsan Buuhoodle jabhada Buuhoodle SSC waxaan ognahay Awdal State waxaan ognahay jabhadii ugu dambeysay Doolaal waxaan ognahay jabhado cusub oo imika la rabo in la abaabulo bariga magaalada Burco ka socda. waxaasoo dhanna waxa uu sababa cadaalad darrada laga arkay dawladda Muuse Biixi waxaan leeyahay arrimaha bulshada iyo kala saar siyaasadda cadaalad darro hadday timaadana ummadan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa lagu leeyahay beelo badan sida sharciga cadaaladda haddii loo ilaalin waayo cid kasta waxay noqonaysaa cideeda qarankuna wuxuu noqonayaa qaran burbura ummadda Soomaaliyeedna waxay noqonaysaa mid fahanta arrimaha siyaasadda. in badan waxaan ka sheekaynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka goosatay Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa kaga goosatay waxay cadaalad darro ay ka tirsatay in markaas xukuumadda jirtay ay kaga timi. laakiin waxaan ognahay imika xukuumaddaas wixii lagu diiday inay maanta ku dhaqmayso xukuumadda Muuse Biixi. saami qaybsigii dawladda oo ka warhaynaa maanta beesha Muuse Biixi baa u badan. waxa maanta arrimihii dawladda ama shaqaalihii dawladda ama wasaaradihii ama taliyayaasha ciidanka guud ahaan wixii oo dhan gacanta ku haya. waxaan leeyahay saami qaybsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ahayd mid la wada dhaliyay reerihii u soo halgamay ee u soo dagaalamay ee dadkoodu u soo dhamaadeen ayaan maanta talada dalka waxba ka haynin waxna ka qabanin cidna wax ka weydiin. taasina waxay keenaysaa aakhirka marka ugu dambaysa in dalku dib u burburo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay xaaladeedu isbedesho cid kastaana cidii ay taageersan tahay cid halkay u aragtay dan ugu jirto ay aado. marka waxaan kula talinayaa madaxweyne Muuse Biixi inuu arrimahaas dib hoos ugu eego xalliyo dalka iyo dadkana uu sinaado cadaalad.